Jenaraal Zakiya Xuseen ayaa goordhow shaacisay in albaabada la isugu dhuftay oo muddo 3 maalmood ah la hakiyay shaqadii xarunta dambi-baarista CID-da ee magaalada Muqdisho. Taliye ku-xigeenka ayaa waxa ay sheegtay in warqadda dambi la'aanta ee CID-da muddo 3 maalmood aan laga heli doonin xaruntaasi sababo la xiriira cabasho ka timid shacabka Soomaaliyeed. Booliska Soomaaliya ayaa ka jawaabaya cabasho ka timid shacabka Soomaaliyeed waxaana dhammaan shacabka ku sugan gobolka Banaadir la ogeysiinayaa in muddo 3 maalmood la hakiyay bixinta warqadda dambi la'aanta taasi oo bixisa xarunta dambi-baarista CID-da. Muddadaas aan dooneyno inaan dib u habeyn ku sameyno nidaamka helista warqadda dambi la'aanta. Bulshada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay noo dulqaataan muddada hawshaasi aan wadno, ayay tiri taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed oo mid ka mid ah baraha bulshada qoraal ay soo dhigtay arrintaasi ku sheegtay. Shacab badan ayaa dhibaato iyo laaluush xad dhaaf ah ku qabay xarunta dambi-baarista CID-da ee magaalada Muqdisho, kuwa oo qaylidhaan buuxda ka keenay hanaanka bixinta warqadda dambi la'aanta oo muwaadinka Soomaaliyeed uu doonayo markii uu tago xaruntaasi lagu qasbo inuu bixiyo laaluush si uu u helo warqaddaasi.